mahad celiyo Prada platform oo runtii caaw inoo daahfuraysa madashan aad muhiimka u ah ee doorasho kaab dabcan waxaad ka garanaysaan magaca ay wadato ee doorasho kaab inuu yahay magac aad related ula ah barnaamijka doorashada iyo sida aynu u rabno in maadaama aynu u jihaysanay dhankaasi dimuqraadiyadda uga faa'iidaysano adduunyada horumartay ee aynu ku noolnahay dabcan inagu waxaynu ku noolnahay waddan loo yaqaano dunida saddexaad haddana waxaan nahay dad aan isleenahay maanta meel fiican bay ka joogaan dhinac walba waan uga mahad celinayaa dowladda Puntland hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda ee xisbiyada badan iyo helidda xuquuqda muwaadinku inuu waxna doorto isna isi soo taago waxaase aad caawa mahad celin iyo bogaadin u midan madashan doorasho kaab iyo nidaamkan tiknoolajiyadda casriga ah oo runtii adduunka oo dhan maanta uu ku tiirsan yahay iyo duniduna ay aad uga faa'iideysato haday noqon lahayd waxbarasho haday noqon lahayd maaragtay xiriir iyo haday noqon lahayd ku xirnaansho adduunyada kale waan huba doorashooyinkii hore ee Puntland hadda ka dhacay ee local government-ga ahaa ama dawladaha hoose iyo councilska inay ahaayeen kuwo aad loogu dadaalay intii tabar ah laguna wareejiyay shaagi muhiimka ah dabcan waa nidaam virgin ku ah wadankeena oo aad maaragtay ugu cusub haddana siduu u dhacay waxay u muuqataa in dadka reer Puntland ay yihiin dad xadaariyiin oo ilbaxa dad yaqaan xuquuqdooda oo raba inay codeeyaan ayna doortaan muwaadinka markaas ay rabaan taas waxay ku heli karaan oo ku xaqiijin karaan inay isticmaalaan nidaamyadan kale oo adduunyadu isticmaasho oo lagula socdo xogta oo lagula socdo meesha adigoo gurigaaga jooga taleefankaaga uu kugu degsan yahay afkaasi aad ka isticmaalaysid meesha aragtid inaad iska diiwaan gelisid xaafadaad degan tahay xilliga polling castiga leedahay ama aad codaynta leedahay iyo degmada ama xaafada aad markaa joogto inkastoo doorashadii hadda ayaantii dhaweyd qof iska diiwaan geliyay waa bari u deganaa hanti wadaaga asagoo markaas halkaa u doorbidayay in qof uu rabo in uu codeeyo halkaa joogto waa dareemi karnaa nidaamkan inagu cusub inuu yahay mid u baahan waqti badan iyo faham badan laakiin haddana ugu yaraan inuu shaagaasi wareego oo nidaamka dimuqraadiga Puntland lagu soo qaado waliba lagu bilaabo awalna ay ahayd hooyada federaaleynta Soomaaliya iyo dib u mideynta dadka Soomaaliyeed iyo dawladnimada maantana ay tahay hooyada dimuqraadiyadda waa bogaadinayna laakiin waxaan u baahanahay dabcan shaagaas intuu wareegay wax badan baa sixi doona wax badan oo khaldanna waxa laga baran doonaa 10 nidaamkan digitalka ah oo tiknoolajiyadda casriga oo adduunka horumaray oo isticmaalayo oo doorashooyinka loo isticmaalo xogtaada ku gudbinaysid cabashadaada ku gudbinaysid meeshaad ka codeynaysid ku ogaanaysid xaafadaada ku ogaanaysid meesha cabashadii aad gudbisay ku ogaanaysid waxa u baahan tusaale yar haddaan idiin soo qaato doorashadii ugu dambeysay oo hadda dhacday 30kii degmo 30 iyo waxaan u malaynayaa iyo 3 bay noqonayaan markii 3 pilot project-ga lagu daro 400,120 baa isdiiwaan geliyay oo dadkii isdiiwaan geliyay oo rabay inay doorashada aadaan ay ahayd dadka codeeyayna waxay ahaayeen 252,067 qof codadka qasaarayna waxay ahaayeen 14,291 dabcan haddii nidaamkan aan haysan lahayn digitalka ah oo xogteena iyo aan kula soconayna aqoonteena koorsooyinkiina idinku diyaarsan yihiin waxa laga yaabaa in intaas oo dhan naga qasaarteen ilaa hadda waa salugsanahay 401,000 in ay maaragtay ay isdiiwaan geliyeen sababta garow kaliya baa isleeyahay intaas in iska diiwaan gelin ku fiicnaan lahayd waxaan se rajaynayaa dadku next time inay bartaan waxaan ka codsanaynaa dawladda xisbiyada in la furo dib loogu nadaaqdo nidaamkan axsaabta saxda ana la soo saaro 8 xisbi xoogaa aad bay u badan yihiin in la isu guurguuraan jeclaan lahaa oo xadaaradda iyo ilbaxnimada laga eego si axsaab tayo leh oo challenge garayn karta markaas nidaamka dawliga iyo siyaasadaba ay noogu soo baxaan waa mahadsantihiin